وزراء مركو هذا وابل وقو خسلا لب لب قدوميه برلمانك انو نولي انو دنت لما كل حسن شيخ iyo ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaanka qol wada gala maalmaha soo socdo soo xula shan qof oo shanta qabiil ee Soomaaliya ka matalo oo arrimaha militariga iyo arrimaha dagaalka iyo arrimaha xoreynta dalka Soomaaliya shan qof oo daacad ah oo wadaniin ah oo qabiilada Soomaaliya kala matalo soo xula shantaas qof dalka dagaal ha geliso shantaas qof dalka abaabul ha geliso shantaas qof dhalinyarada ha abaabulaan maxay la madaxweynaha maanta wuxuu dhaho ma bala qaato rumas sheegana Aleppo dadka xasuusto magaalada Syria aad iyo aad Aljazeera iyo dadka daawatay waxay ahayd magaalo lagu baaba'ay dagaal xun oo ka dhacay ninka la yiraahdo Asad Bashar al-Assad dalkaas hadda madaxweynaha ka ah wuxuu ku sigtay in jagada laga tuuro sida ogeedeen kooxo fara badan oo hubeysan oo Mareykan uu soo hubeeyay iyo dhinac kale oo ayagana Daesh ku loo yaqaanay horta magaaladaas ku hardamay dagaal fara badan ka dhacay ayadoo marka saaxiibka ceeji lagu haayo ninkan Bashar al-Assad jagada laga tuur rabo waxa soo fargashtay usoo gurmaday ninka Ruushka ahaa marka Ruushka wuxuu soo daadguriyay hubka nooca diyaarada waaweyn oo military lagu keenay hubkan waxa loo yaqaanaa dadkii yaqaano 122 mm M30 howitzer ayaa loo yaqaanaa magaca hubkaas waa alaabta xalib magaalada Muqdisho ka degto marka almuhim magaalada Aleppo in la xureeyo oo dawladda ninka hadda jooga Bashar al-Assad uu dib u qabsado waxa sabab u ahaay hubka noocan oo 20 xabba ah magaalada hareeraheeda saas loo dhigay markaas dukumdaakum laga dhigay tuugada meesha ku jirtay habeenii baalin madfaca qoryahan hubkan ka dhacay ayaa dadkaas lagu xureeyay magaalada loo yaqaan Aleppo marka hubkan xalay marka arkay isla markii tii ay ugu soo dhacday Soomaalida arrimaha militariga iyo dagaalka dunida iyo waxyaabahaas la socoto isla marka ayagana sidoo kale dareemaan marka waxa rabaa maanta inaan meeshan bal aan oga hadlo istiraatiiji ahaan dawladda talaabada ay qaaday iyo meesha aan ku sii socono iyo arrinkan inuu yani arrin fiican iyo arrin xun wuxuu noo yahayba ani ahaan dawladda talaabo fiican ay qaaday xaqiiqada marka ka hadalno haddii hubkan dawladda ay faraha ku hayn doonto qabiil iyo shakhsi iyo qolo wax noocaas uusan faraha u galeynin oo loo isticmaalayo in lagu difaaco calanka qadiyadda iyo dhulka Soomaaliyeed aniga waxa dhihi karaa talaabo aad iyo aad muhiim u ah ayaan qaadnay waxaan horta halkan inaan dhaho dawladda talaabo fiican ay qaaday sanad ka hor markii dadaal fara badan kadib cunaqabateynta hubka Soomaaliya laga qaaday maxay la hadaan cunaqabateynta hubka la qaadin ugu hubkan iyo wax la mid ah ma soo degi lahayn horta xalay hub fara badan ay soo degay kan kaliya hadda rabaa ani shakhsiyan in soo qaato inta kale waxay u badnaayeen aan dhihi karaa rasaas iyo gawaari marka hubkan ay u jeedaan ugu yeerno howitzerka asaga waa in gaari ay ku jiito way xalay sida arkaysana laamiyada magaalada Muqdisho sida loo jiidaayay ayaa inta badan loo jiidaa marka sidee u isticmaali karnaa anaga Soomaali hadaan nahay istiraatiiji ahaan horta waxaan rabaa wax yar oo xan ah soo maqlay inaan idin sheego Etoobiyaanka dib uma uusan guranin oo ogaada qorshaha iyo haligta wali waa socotaa marka hadda waxaa maqlayaaba ku Etoobiyaan meel aan ka soo akhriyay in Etoobiyaanka uu hubeenayo hadda aragtan hubka xuduudka Etoobiya soo galaayo wuxuu og yahay yani waxa lagu leeyahay taas arrinka hubeenta qabiilada Soomaaliya ee maamul goboleedyada Soomaaliya ee dawladda ka soo horjeedo yani qorshaha wuxuu yahay maadaama dawladda ay Masar hubeenayso in Etoobiyaanka asagana dhinaciisa uu sidaas oo kale ka sameeyo oo uu hubeeyo wax alaali wixii asaga meesha uu keensaday oo jaajuus ah yani sheekada saas u muuqata waxa kaaga sii daran Etoobiyaanka wuxuu go'aansaday Abiy Ahmed lagu leeyahay waxaaba u go'an preemptive measures inuu qaado preemptive measures maxaa waaye waa talaabooyin ka hortag ah ciidamada haram cad goobaha ay ku sugan yihiin la weerarayaa iyadoo Arsenal iska dhigaayo ama qaab qabiileed loo abaabulan yahay waxaa la weerarayaa ciidamada kale ee Soomaalida aad u tababartay oo maaragtay hadda xarumaha magaalada Muqdisho ka baxsan shiboolooyinka iyo meelahaas ciidamada fadhiyo iyo sidoo kale dhankan markaa fiirisid waqooyiga Soomaaliya markii la aadayo marka xarumaha ciidamada dawladda hadda ay joogaan ee Arsenal lagala dagaalamo in horta la weerar lagu qaado ayadoo qaab qabiileed loo abaabulin yahay hubkaas iyo rasaastaasna Ethiopia ee bixinayso lagana soo dhiibayo oo waliba sponsor ay ka yihiin maamul goboleedyada Soomaaliya qaarkood dhalinyaro way maqlaysiin oo maleynaya horta qorshe noocaas socdo oo dawladda lagu distract gareynaa Soomaaliya meesha ugu jilcan ee laga taabto waa dhanka qabiilka way marka hadda haddii ciidan dawladeed ciidamada federaalka ah oo aan qaab qabiileed u abaabulneen meel tuulo ah
اسكو دعان كو معوسله اما ميل جوجو فيريا قرشه اتوبيانك وتا idin sheega Soomaalida waa lax caadi ah maxaa yeelay qabiil ahaan u kacayaan isla markiiba tuuladeeda see loo taaban karaa see madfac loo ridi karaa marka waxa arkaysa ayagoo Mareykan iyo Yurub lacag ka soo diraya arkaysa Etoobiyaanka u danaanay Etoobiyaanka indirectly ayagoo u danaanay arkaysa marka dibkaasna dhalinyaro yani wuuna heesta marka hubkan xalay soo digay استراتيجي ahaan aniga su'aash aqaba waxay tahay dawladda sidee u isticmaali doontaa waa good waa hub fiican aad iyo aad u fiican waayo loogu talagalay in koox meel haysato laga buriyo oo meeshaas ma aragtay geedkii laakiin hadda dagaaladan iyo abaabulkan waxaan socdo dawladda bal ayada uga fadhinaa in wasaaradda gaashaandhigga inay noo bayaamayaan ay noo sharxaan laakiin anaga haddaana dhalinyarada anoo afkiina ku hadlaayo maxaa leeyahay ani horta waxaan leeyahay kolley عدو بدن يعني أرسنال وادنا أو جبت كويس الصومالي دي لكن هذا دولك لقادنا أيو يبدل لقادنا أي أفارهاس أي نقص وبت صومه هوبكاس دولة وحكاعد سنة إن حدودها الصومالية يجيسو فيري مدر حس شيء يوزارد قاشانديكا إذا ما دولة وحنلاقي هاي هوبكاس جيدة أو سأو دان حدودها دن كان بلدوينه دن كان جدو دن كان باي بقول دن كان Puntland iyo halgeey ma geen kartiin ma ma geen karo Soomaa oo meeshaas waxa haysto maamul goboleedo dawladda u diidayo inay meeshaas imaado horta soo saas ma aha yes dheh maamul goboleedada ku qaaduulaan anigu ku hadlaay afka dhalinyarada waxa leeyahay ciidamada hubeysan ee hubkan la siiyay cadawga banaanka iyo cadawga gudaha ee dawladda Soomaaliya ciidamadeeda diidan waa isku wada mid attack weerar ku qad xuray dhulkaas ani intaas ayaa maaragtay iga dardaarana waxaan rabaa inaan soo gabagabeeyo dawladda xashiiqu hogaamiyo horta miyo hal mid idin ku codsanaa nasiib xumo dawladda ama muxuu ahaa waxa rabna asheegna laakiin dawladdu waa la qabiilay Soomaalida dawladda qaab qabiila waa aragtaa marka shan qof oo si fiican u hadasho qadiida dalka iyo difaaca taqaano hala soo xulo xasan sheekhow dawladda federaalka ani intaas iga talaa